dalka la rabo leeyahay hal la xaliyo dadka ay sheegayaan garbahaaraya xalin weyn ina ogaataan raba wuxuu yiri waa tagay madaxweynaha hadduu yiri waa tagay anagu farqa kuma dhigi karnee markaas haddana wuxuu damcay sida loo tagay in annaga la qaadno warmatiyood la soo saaro waxaan dhahnaa anaga ma garanayno inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaati marka waxaad tiraahdaa wada hadalaa socda shir dambaa la isugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubba lagu sheegaya habeenka hadlay wuxuu ku wareegay waa la sheegay waa aragtay cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha hargeysa waxay yidhahdaan baa la yidhi waxa aadaanka hore isu kaya keen markuu dubba dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlayo aan la garanayn horta dhawaaq la istaaga masaa'ibka soo baxay habeenkii uu wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynena waa tegey intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada uu soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma habboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waa malayna interneteena ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama sii gaarin waxa gadaan garbahareey dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday aan waxaan isleeyahay danigay soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee ka ogol yahay baarlamaankaba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahday shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay afnagaad weeye adiguna suuragal maaha intii xasan sheekh gartay ma garan weyd intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yiri siciida waxaan iska qorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood leeyahay marna leeyahay maamul goboleedka u horeeyay oo u weynaaba tihiin roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaan waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto ku soo wacay waa wada hadalna haye 8 maxaa dhacay waxa ma dhicin haye sideed waa ujeedaa inay waxba dhicina ama nimanka ragga hurdaano markoo sidoodii ka caambaayro gidaarada ka daata waxyaab kale habeenkii markii waxa dhaceen shalay miyaa soo wacay wuxuu waxay tiri u yiri nimankii haween gidaarada ka soo laabay wax soo daatay ma aragtay u yiri waxa yiri ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay horta gorgorkan la sheegay anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudug la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljirka daahsoon horta inaad saas inaad u kood gareysaan aan rabaa haram cad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan mal aniga waa research garay waxaan ciidanka intee la eegyahay waxaa la sheegay ciidamada turkidu tababaray iyo kuwa waxa la isku dardaro ciidan hadda aniga aan sheegay dad ka nixinayo tiro badan oo dabaabaad wata hadda hal maalin shabaabka ma aaday wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwaa lama tagi karo war gorgorkan hadday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furi waayeen niman meelay ku jiraan oo cid arag oo aniga hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hadda
أول واحد الله سؤال وصاص بيجي لك كرتو ذكر البنت الأساس ده لكن وقاعد سؤال نقاني ما إلا الشباب شيء كذا كتوال أرجع سؤال إن إسقرحيان أو ذكر قيورعان نمن كان أنا قصيد الله توبر الشك وين أيجي مرك وإحنا حريصة وإليه مجلس خرط الضلك ما يجوا كل صعده وحنا رأينا صفي عن فهمتها تك وحنا الله مشى بلد لكن وقرسون وين رونا عندي شيء يعني محايا له هدان كدق وينه والضلك كان دجال سكي وكدعه وقبائل السلايو وحوق السوشكت والضلك الدبابات لا جيرسيو أنا يقدم بيليان هنا لماك انترناشونال كي هذا ضحى 17 سبتمبر هلا احترام 17 سبتمبر على متراس ودافت 19 فبراير لا قدم بيس habeenkii markaan doodayno wuxuu dhahay in dhacde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runta iska sheegayay ayaantii horena wuxuu yiri ad sabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay labada marba waxba dhacay ani ay doona cid u shaqeynaa laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal daljirka dahsoon ninka wuxuu rabo hadho cid ka yeersiisay ilaa madaxdii intay hadashay dhiilay dawlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horeysay meeshii maraayeen waxay lahaayeen mudaharaad biis fulaan rabnaa mid nabadeedaan rabnaa ninkan wuxuu yidhi haddaaba samaysay gartaya kii maalinnimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra-iisul wasaaraha ku ahaa oo calankiisa u lulaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yidhi ciddii sharciga ka hor timaabta tallaaba laga qaadaya horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kolle ari waa iga geysan yahay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta maaha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku waxaan hadalkay kusoo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goysin haddaan gabalkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada u kala saareen dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku wuxuu heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wasuusay oo laga shakiyay oo la yiri cuntadeeda ha cunin oo waa sunbaa ku jirta oo waa lagu dilayaa ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aan sheegay maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayay mid al-shabaab sakeeyay wax difference oo dhaxay maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadlay ayaa wixii jira u sheegay waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waxa dhigi jiray muu wax cadaayo halku markuu yimid ragga kale waxay muu hadlo warninkaas ka daayay marka waxba jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin dictatoriyada ka yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan
wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallaahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada ma imaanaysaan lafaheenaa uga baqnaba wuxuu yidhi dhuusamareeb dhuusamareeb haddaa ka nimid xabadaa ka dhacay may anaa awo waxba kama dhacayaan igu dhahay I don't know cidduu og yahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo hasfiima uu ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin aniga waxaan inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harb jiidayo run ayay sheegayaan ha ku kalsoomina nin daarood har u jiidayo anuma soo arag xataa maraacan nin har u jiidayo soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankeyga ugu dambeeya weliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo Puntland waxaan oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekay dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta ninkii inii taalla wixii dhacay 80-aadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaan raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro هذا اللي نقوله عنه ممكن تريناه سومالي أن جعلنا هذا اللي نقوله ممكن تريناه وحال روا إلا واحد واللي يقان أو وحي قرنال احترامه يمدان وحان قبا حوق واحد صارتان بنتلان يجريتان كذا ناس وسلامتي والسلام عليكم